waxaa igu dhacdo kale anoo fasax ku maqan oo hooyo oo dhalmo ku maqan inuu delivery wax ka dalbado abka ani sameeyay muraabaxa ka dalbado oo ii keen marka ii keenana daatadii yaa wax si ka noqoto qofka delivery uu dhameystiri waayo dalabkii bis waxaa dhaaniyo daatada iska xir dib abka u kicigu ku dhameystirmaa dalabka uu fiiri abka ma taqaanaa u dhaaday ya maya horta waxaa dhaaniyo waa fahansanahay qolada sameysa kamid abka iska xir daatada ka maqan daatada saxo waa ka dhaadhacsiin waay inuu qaabkaas yani wax ku sax karo asoo aaminsan inaa abkaas waxba ka aqoonin Mareema Aadan Diiriye waxaan kamid ahay injineerada Tabaarak ICT Solutions waxaa igu dhiirigeliyay inaan IT barto oo programmer noqdo marka iskoolka dhameynayay waxaan fursada gabdhaha suuqa technology-ga aad u yaraay sidoo kalena technology waa kuliyad adiga oo baranayda ku shaqeysan kartid oo suuq leh caqabadaha aan kulmay oo ka soo gudbo waxa kamid ah inaa isku dheeli tiro waxbarashada shaqada iyo hooyanimada ma ahan wax sahlan waxay iga dhigtay qof adag oo isku balaan gareyn karo shaqada iyo waxbarashada iyo hooyanimada Tabaarak ICT waxay iga dhigtay engineer dhab ah oo leh khibrad iyo waayo aragnimo oo ku xaliyo barnaamijyada kala duwan ee bulshada quseeyo waxay iga dhigtay qof la shaqeyn karo tiimam kala duwan inaan ahay haweeney fildiga IT ama technology ku dhex jirto waxay ii tahay sharaf weyn sidoo kale waxay ii tahay matalaad aan ku matalayo gabdhaha ku haminayo inay ku soo biiraan fildiga technology-ga ama hadda baranayo ee ka soo qalin jabinayo fildiga technology-ga waa mid support gareeyo dumarka marxalad kasta ay yihiin haday gabar tahay iyo haday hooyo tahay ee reer dhaqaneysaba wuxuu leeyahay fursado ay kaga faa'iideysan karaan gabdhahaas sida ayagoo ku shaqeyn karo freelancer ayagoo gurigooda joogaan haday hal xirfad ama laba xirfad ay bartaan sidoo kale gabdhaha waxaa leeyahay hadii ay Mareema sameysay inkan waa sameyn kartiin inaan hooyo ahay hadana aan ka shaqeeyo oo ku dhex jiro muddo dheer fildiga technology-ga waxay iiga dhigan tahay inaan ahay hooyo karti badan oo laba door ka soo baxday doorkii oo hooyanimada iyo doorka inay bulshada wax ku soo kordhiso waxay baratay bulshada wax ugu tarto sidoo kale hamigeyga wuxuu yahay inaan soo saaro ubad technology-ga mustaqbalka door weyn ka dhilo haweenkii waxay ku leeyihiin door muhiim ah mustaqbalka technology-da gaar ahaan markii wadankeena loo fiiriyo wadankeena technology-da hadda ayuu aad u soo kacaya oo baahi kasta oo wadanka taagan hadda waxaa lagu dabaqayaa in loo bedelo qaab technology in loo xaliyo dawladda hadii aan leeyahay hadii bulshada qiimeeyay kala ahaan leeyahay sidaa darteed maadaama uu population-keena dumarku u badan yahay dumarka waxaa laga rabaa inay ka dhiiraan door muhiim ah ka qayb qaadashada iyo ku shaqeynta iyo inay ka dhex muuqdaan fildiga technology-ga shirkadda intaa jooga waxaa ka soo qayb qaata barnaamijyo kala duwan ee iskugu jiraan e-commerce delivery taxi caafimaad waxbarasho services dhammaan kala duwan oo shirkadda ay qabato waxaana farxad ii ah inaan arko application aan sameeyo kale ee bulshada isticmaalayso even aad markaas aad dhigi karin qofkii application aan sameeyo oo ku aaminaynin waxa dhacday in aanu hooyo ah oo ku maqan dhalmo ku maqan in aad dalbado muraabaxa dalab ah oo qofka delivery markuu ii keenana oo abki daatadii wax si ka noqdaan oo internet uu soo qabo waay kadibna qofka ku dhahay yani saan u xalli abka daatada ku shubo abka iska xir soo fur dalabka dhameystir kadibna uu iga aamini waayay in aan aqaano abkan sida loo isticmaalo kadibna aan u sheegay in aan develop gareeyo teamka development oo kamid yahay aan kamid ahay kadibna uu aamin waa ilaa markii dambe intuu qofkii ka qaba waayay kadibna uu data ku shubtay uu warkayga yeelay kadibna u shaqeyso dalabka u dhameystir asoo fiirinayo markaas oo iska tagay oo aamin la istiin